midowga Yurub waxay in badan ku eedeeyaan wadamada danyarta ah sida Soomaaliya musuqmaasuq maamul xumo iyo xadgudub bani aadam laakiin waxay warbaahinta dalsoor heshay warqado tusaya in midowga Yurub sharciyadoodii iyo kuwa caalamkaba ay jabiyeen midowga Yurub waxa la siiyay dhul ku yaala gudaha garoonka diyaaradaha Muqdisho si ay xarun uga dhistaan taas oo 10 qof ay ka shaqayn doonaan haddaba waraaqahan ay diyaarisay qaybta adeega shaqada dibadda ee Yurub oo ah heshiis ay la galeen shirkadaha shisheeye ee maamulaya xaruntaas waxa ku qoran sidan qandaraasluhu ma shaqaalaysiin karo qof haysta dhalasho Soomaali ama isirkiisu yahay Soomaali goobtaasna adeeg kama bixin karo markuu dhismuhu dhamaado kadib qodobkaas macnihiisu waxa weeye bulshada Soomaaliyeed ee gudaha dalka ku nool iyo kuwa haysta sharciyada Yurub qofku marba haduu isirkiisu yahay Soomaali kama shaqayn karo goobtaas nadiifiye waardiye iyo shaqaale guud xataa kama noqon karo ana midowga Yurub heshiiska ay ku dhisan tahay oo hadda kii u dambeeyay oo Lisbon oo Treaty ah oo kale waxa uu si cad u leeyahay mabaadi'da ay ku dhisan tahay midowga Yurub macna waa in la ilaaliyo qawaaniinta caalamiga macna mana la ogola oo qodobka labaad ayaa wuxuu si cad u leeyahay in aan la ogolayn in oo dadka la kala saaro inay xuquuqda aadanaha ilaaliyaan marka hadii la leeyahay qof Soomaali ah shaqadaas looma qori karo macna waxay si cad uga hor imaanay qawaaniinta caalamiga iyo tii Yurub waatan xafladii lagula kala wareegay dhulkaas Today is a special day. Today is Europe Day. waana kan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo lagu soo dhaweynayo goobtu waa xalane dhul Soomaaliyeed oo ay shisheeye maamulaan halkaas madaxweynuhu ku saxiixay heshiiska isagoona sheegay in ay Soomaalidu ka faa'iidi doonto mashruucyada ay Yurub wado sida xarunta cusub ee ay dhisan doonaan This time around is what we need is what makes the Somali citizen to get back his life, to make him earn honestly, to make him earn decently. What makes the Somali family to have their own dish. kaameerada marka la hor joogo waxa la muujiyaa qosol iyo farxad dhulkan waxa Yurub lagu siiyay bilaash mahad celinna waa laga mudnaa laakiin xogta ay warbaahinta dalsoor heshay waxay tilmaamaysaa in wakiilada midowga Yurub ayna qadarin u haynin Soomaalida waa arin oo ana aan ay la arag iyadoo kale waqtiyadan hadda oo waqtiyadii gumaysiga u jiro kale arrimo inay dhacaan laga yaabo macna waa arin oo aad u adag oo la aqbali karin in la yiraahdo qofkaas xaqaas ma leh macna xaq uu shaqo ku doonto malahan sababtoo ah asalkiisa ayaa Soomaali ah waliba nasiib darrada jirta waxay tahay meesha saas lagu leeyahay inay tahay dhulkii Soomaaliya dawladda Soomaaliyana waxay u joogtaa inay danaha Soomaalida ilaaliso heshiisyo badan oo faa'iido ugu jirin bulshada Soomaaliyeed ayaa la saxiixaa laakiin kan midowga Yurub lala galay uu ka daran yahay kuwii kale wuxuuna khatar ku yahay jiilalka soo socda